kadib markii shalay warbaahinta lagu arkay sawirro laga soo qaaday askarta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Eritrea isla markaana uu booqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay qaar ka mid ah waalidiinta waxa ay sameeyeen isku soo bax ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in markii ugu horeysay ay arkaan sawirrada caruurtooda. madaxweynaha waxaan ka codsanaa caruurteena inuu keeno oo hadda waan ku aragnay sawir inuu ayagoo taas u socdo oo noo keeno oo aan aragno ku faraxno. banaanbaxay badan halka ku dhigteen banaanbaxan ugu duwayay aad iyo aad kii hore wax badan oo ka duwaya wax badan rajaba ma lahayn awal laakiin hadda rajo weyn aan leenahay. waxaan maanta meeshaan u nimid oo isugu keenay farxad waxaan muruga la taagnaanaba maanta farxadaan la taaganahay. ilaahay idankiis murugadii waa naga baaday qaranka iyaga cusub baa murugadii naga faa'iiday. waxaa ku mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala ka sakow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa. ilaahay waxaan ka baryaa waxa jeceshahay inuu ilaahay ku siiyo sida noogu istaagto noogu kaan aragtida aan tusto nooga rumay waxaan ka codsanaynaa ilmahan inaan noo keento aan ka codsanaynaa waa noo istaagto madaxaada Allah raajiyo farxad badan baan dareennay farxadaas ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa saan u faraxnay ilaahay nooga sii farxiyo iyo mid ka fiican qalbigeena madaxweyne waad qaboojisay ilmaheena waa farxisay ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbiga ku qaboojiyo farxadda aan maanta haysano ilmaheena ay haystaan waligeed ma arkin inaana waligeed arkin oo maleeyo fiina abadan ilaa aan dhashay hadda 3 sano iyo barbaan waxaan tagnaa qoraxda iyo ciridda waligaan waxna la hadlana ma arag maanta marka ilmaheena godka ka soo bixisay waan kuugu faraxnay madaxweyne waxaan ka codsanaynaa sidaa nooga farxisay ilmaheena oo godka uga soo saartay inay soo godka dib ugu laaban ilaa farxadeeda naga socdo dhowr jeer halka ku banaanbaxdeen maanta maxay ugu duwan tahay maanta waxay ugu duwan tahay wali ma aanan arag madaxweyne inta taga ilmahayaga nooga soo warbaxsha madaxweynaha koor ma aanan arag waxaan ku jiifnaa ilmi in la soo wado waxaan ku jiifnaa aragooda iyo imaashooda inuu isku xigo waxaan ku jiifnaa in madaxweynuhu noogu maqan yahay wallaahi xala iyo habeenkii Xasan Sheekh Maxamuud la dooranaayo farxaddu isku mid ay ahayd wallaahi aniga xaggayga waa faraxsanahay cimrigiis jiryaw caynaan ka hay magacayga Caasha Cabdi Cilmi waxaan leeyahay madaxweyne Allah kula garab galo kaaba xigna ilmaha waa askartii qaranka waa ilmihii qaranka annagu waa dhalnay kaliya hooyanimaan u dhaqnanayna adna madaxweynaha u dhaqanaysa Soomaaliya oo dhan baa iska leh. hooyooyinkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maanta ay farxad dareemayaan isla markaana ay arkayaan ifafaala muujinaysa badqabka caruurtooda waxaana madaxweynaha Soomaaliya ay ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan dalka dib loogu soo celiyo caruurtaasi tababarka ugu maqnay dalka Eritrea.